muhiimadda uu leeyahay IT day waxay tahay in yacni marka hore ardayda IT-da ah isbartaan kulmaan si wada jir ah. maalin hore waxaan aad uga helay ardaydii jutsa ay ku wareegaysa galaasyada inay lahaayeen war maalinkaas markaa imaanaysid saaxiibkaagii oo galaaska ha soo raaceen keligaa imow si aad u faa'iidaysto. waa sax maanta waxaa arkaysaan dadka halkan programyada kasoo jeedinaya in maaragtay last year dadkii ahaa oo maaragtay sanadkii hore joogay semester 2 iyo wixii lamid ahaa in dhiirigelin ay kasoo arkeen inay maantana halkaan ayagana u yimaadeen ay maaragtay wax kasoo jeediyaan. intaa marka waxaa ka arkaysaa dhiiranaanta iyo in qof walbaba uu ka helayo encouragement uu isleeyahay next year aysa kaa fakanin. waxaan aad u bogaadinayaa dhammaan ardadii programyada fiicnaa halkaan maaragtay kusoo bandhigay, gaar ahaan gabdhihii aad u jeedeen noo soo bandhigaya maaragtay brandingka mar walba ayagaa maaragtay leading ah. waxaan u hambaleynayaa tiimka hawshan quruxda badan soo agaasimay isku soo dubarrimay barnaamijkan dhinac walba ka dhamaystirnaa noo soo bandhigay. waxaan sidoo kale aan bogaadinayaa ardaydii soo bandhigeen barnaamijyada kala duwanaa oo dhammaantood aad dareemaysay inay ka muuqatay in heerkooda aad uu u sarreeyey dhan walbay ahaadaan. tiimkii qiimeyna aad ay ugu adkeed inay kala saaraan barnaamijyadaas. dhammaantiin waxaan idinkugu hambaleynayaa idinkuna bogaadinaya inaad wada guulaysateen. dabcan waxaan marka hore u mahad celinayaa Allah subxaanahu wa tacaala oo noo suurageliyey maanta in xafladan iyo barnaamijyadan quruxda badan leh ay halkan nooga hirgalaan. waxaan u mahad celinayaa sidoo kale ardayda kulliyadda IT-da, maamulka kulliyadda, howlwadeennada iyo macallimiinta oo runtii qof walba oo ka mid ah uu lahaa kaalin mug weyn in barnaamijkan maanta halkan aan ku daawanay uu ka hirgalo. maanta iyo maalmaha la midka iyo maalmihii lasoo dhaafay iyo kuwa soo socdaba waa maalmo loogu talagalay ardayda in ay isdhexgal ku sameeyaan, in ay isbartaan, inay wada shaqeeyaan, inay wax alifaan, in hal-abuurkooda iyo hibadooda ay soo bandhigaan. innaga ka maamul ahaan waxaan leenahay kaalinta ugu yar oo ah inaan idin mahad celinno, idin daawanno, idin bogaadinno, tala idin siino. idinka ayaa stagekan iskale waqtiga ugu badana leh. mar walba oo ardada laga dalbado inay wax soo bandhigaan, wixii la baray wax ka dheeriyahay soo bandhigaan. ardada wax soo bandhigta arday semester 2 ah, arday semester 4 ah, arday semester 6 ah. kulliyadda IT-da maadaama aan macallinna ka ahay waa ka warqabaa manhajkooda iyo maadooyinka ay qaataan. intii ardaya halkan soo istaagtay dhammaantood ama badankooda waxay soo bandhigeen wax ka baxsan wixii macallimiintu ay bareen. ardayga saxda ahna waxaa lagu yaqaanaa, taasaa lagu yaqaanaa. macallinku wuxuu ku barayo waa furihii uu ku siinaya. albaabka sida laysaga furo oo hoolkan loo soo galo unbuu ku baraya, laakiin hoolkan meeshaad ka degi lahayd, sidaad u qurxin lahayd iyo waxaad ku samayn lahayd shaqa adig ku taalo. arday walbo halkan soo istaagay iyo ardada kale ee kulliyadaha kale wax ka soo bandhigtaba saas oo ardayga annagu aan rabno jaamacaddeena inuu ka baxo waa arday noocaas ah. ardayga aan rabno inaan soo saarno waa ardayga markii wax yar la tuso wax badan ku darsanay. inta ugu horeysa inta ugu badan waa design, kadibna waxay noqon doontaa email iyo password. haddaa dhaho register automatically wuxuu ii geyn doonaa magacayga meesha soo qori doonaa kuwa userka aa samaystay. iskaanka hamoodina mid fake ah calashaan qofku markuu ka wahsado inuu wax akhriyo unbuu dhac si yaro tartiib ayuu telefonkiisa ku bahalkaysanaya kadib uu soo qabanaya information gaarka ka jira. waxaa la yidhaahdaa waa business card. badanaa business card iyada waxaa qaadan kara qof walba. branding intaan uu ka koobnaan doonaa dhammaan wixii looga baahnaa branding. kow saan uu ku bilaabmaa oo backgroundkii iyo company wixii uu yahay. loogada mainka saan ay u eka tahay. color validationka gadaal marka laga geliyo iyo say u ekaanayso. brand mark oo kalaradii hadhow gadaal laga geliyo ayagoo yaryar. waxaa isticmaala waxaa ka mid ah Google Sitekit oo advertisement iyo digital marketing sida analytics iyo Google Ads-kii ku xiri lahaa. website-ka booqan doonaa saan uu eg yahay. kow panelkaas oo leaderka saaska
kadib surface-ka company koorsada markaas uu ka qaadayo kuwiiska koorsadan waxaa laga soo aqrin doonaa qaybta adminka uu ka soo geliyey qaybta adminka markaa soo galo qofkan waxaa usoo muuqanaya dashboardka kaasoo kasoo muuqanayso dhammaan inta arday oo la diiwaangeliyey iyo inta macalimiin courseska iyo sidoo kale inta kuwiis markaas la qaaday qofka adminka wuxuu awood u leeyahay sidoo kale inuu admin register gareeyo sidoo kale inuu inta admin markaas ku jirtona inuu arki karo intaan wax maad ka bedeshaan waxaan isku daynay marka dadaal yaradeena awgeed inaan sameynay toolkan yar toolkan wuxuu ku qaban doonaa laba shaqo midkoodba labada shaqada ugu horeysa waxay tahay in ugu horeyn horta inuu ka haqabtiro dadkaas writerskaas inuu ka yareeyo dhibaatadii manualka ahayd oo uu u ogolaado in ay manual u qori lahaayeen inay codkooda isticmaalaan ay isticmaalaan waxaa ula jeedaa macnaheedu waxay tahay in qofkan uu earphone isticmaalo amaba telefonkiisa ama laptopkiisa inuu soo qaato uu kadib codka caadi asaga uu ku dhawaaqo waxa uu qoraayay systemkana uu u bedelo waxaas uu qoraayay documentiga uu u baahnaa taas waa option oo ah inuu codkiisa isticmaalo sida magaca ka aragtaan waxaa waaye brandinka wuxuu ku saabsan yahay travel agency marka waxaa waaye meel looga sidaan ay usoo muuqanaysaa loogada waxaa waaye Bizan Travel Agency qaabka ay u nashqadeeyay sidoo kale waxaa waaye waa aragtaan logo kalarada aan kala isticmaalo waxaa waaye midka orange waxaa isticmaal 60% kalar kale waxaa isticmaal 40% waxyaabo kale oo shaqo waxaa waaye color walba kood uu leeyahay koodkiisa waaye sidoo kale waa aragtaan logo variation logo kalara ay ku soo bixi karto waa aragtaan haddii color walba la saari karo kalara ay ku soo bixi karto sidoo kale waxaa waaye logo concept logada waxyaabaha ay ka kooban tahay shipkan iyo airplane iconkan iyo xarfaha la isku dardaray dhammaantooda waxay ku yimaadeen Bizan Travel Agency waxaan noo wadaa teamkan aan ku sameeyay C# wuxuu leeyahay 3 stage koobaad waa inaad 500 iyo wixii ka hooseeya waxaad ku guuleysanaysaa bronze 500 ilaa 1000 waxaad ku guuleysanaysaa silver wixii ka koreeya waa gold aan noo bilaabo teamkan